dawladda hoose may ballanqaaday hay'ad ku dhisan degmo oo leh shakhsiyad qaanuuni ah ujeedkeena uu seeyaa kootil maama heerka dawladda hoose ee koonfur galbeed dawladda hoose may buu heerka dawladeed ee ka dhow bulshada golaha deegaanka ee degmada mayba uu isku kooban yahay xubno la ku doorado xaafado iyo tuulooyinka degmada waana mataliyaalka degmada iyo tuulooyinka hoos kooyawa golaha deegaanka mayba uu sileeyaa doorkan ka bileerin ee maamulka degmada iyo dhiniyada siyaasadda sharciyada qorsheeyowka ansixiyowka iyo walyaabooga lamid ah dejiyowka siyaasadda guud ee dhaqaale iyo bulsho ee la ka hormariyo degmada dhismo dugsiyada walbarasho aasaasiga ah haan quraanka xanaanada awlaada iyo maamulusho iyo biyowka mushaaraadka macallimiinta ee wal ku dhikaw dugsiyadaas biyowka iyo dhowrowka howlgelinta adeegyada guud sida biyo korontada gaadiidka dadweynaha iyo adeegyada kale ee dadweynaha lanka taragalay kormeerowka hay'ado gaarka langleeye ee biyow adeegyada dadweynaha inta dawladda hoose iyo kaweeladaas awood biyowka adeegyada nidaamyada dhismooyinka cusub haan la cusboonaysiyo iyo haan aan baahan in la dumiyo dhismo horumariyowka iyo dhowrowka bilicda sida wadooyinka jardiinada goobo dadweynaha kana sadaayaan walka akhrisadayaan waan iska kooyana daryeelka iyo dhowrowka caafimaadka guud ee dadweynaha iyo deegaanka gaar ahaan nadaafadda wadooyinka iyo ku horseedowka cudurrada faafawa dhismo iyo maamulka xarumo xanaanada IoT ariishe MCH daryeelka xoolo iyo ugaarta horumariyowka beero biyo korontada iyo ilaaliyowka adeegyada iyo ku faa'iideysadowka nacfiga deegaanka iyo malaa'ika fariinto may baahsin gudbiday wasaaradda arrimo gudo iyo dawladda hoose ee koonfur galbeed